waxaana ka mid ah inaad ku riyotid maalin jimcaha oo sidaan ogsoonaa maalinta jimcada siidul ayaam waay maalin fadli badan inay tahay waxaa ku jirto saacatul ijaaba ah oo qofkii mu'min ah haleelo ilaahi subxaanahu wa tacaala ducadiisa aqbalaya waqtiyadaba ha loo kala duwo oo haddeertaan lama sheegin saacad heblo lama dhihin laakiin haddeertaan sida culamada qaar ay sheegeen bacd alcasr waa la aqwaal fara badan baa ku imaatay laakiin saacatul ijaaba la yiraahdo baa ku jirto oo ilaahi subxaanahu wa tacaala addoonkii waafaqo oo ducadiisa ilaahi aqbalayo marka haddaad ku riyotid habeen jimco ah maalin jimco ah maasha allah bishaareyso waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha tusinaya haddaad ku riyotid maalinta carafa haddaad aragtid maalin leylatul qadriga haddaad aragtid waqtiyada oo roobka da-ayo kale haddaad ku riyotid inaad aragtidoo kale qof muslima oo kuu soo duceynayo inaad ku riyoto qof halka ah oo kuu soo duceynayo يعني وهالك مركز اللي ما نينك يعني قف مسلم رجل دمر هذا وكوس دعيني وهاي الدعوة قف كمسلم مسلم كل أدعينا بدار دار الغيب كهوام حي مستجابة وي قف كاس الدعاء دي ساي والله أقبلها قف كاس الدعاء والله أقبلها وحيابها كلا تصنين وحكم ده عيل أضاء بيك حبيسو كلا دا كريوت waa ka mid waxaa kaloo la mid ah ducadaad ku duceysanaysa maalinkaas oo dhan haddaad habeenkiina ku riyoto adoo ku duceysanaysid mar walbana waxaa loo baahan yahay inaad ilaahay ku kalsoonaato mala fiican aad ka maleedo aadan degdegin markaad ilaahay bariso subxaanahu wa tacaala oodan dhihin maalinta labaad maxaa dhaca ducadeeda lama aqbalin saas ma ah inaad mar walba sugtid horena waa u sheegnay afdalu lcibaadati waa maxay intidaar alfaraj inaad faraj ilaah subxaanahu wa tacaala ka sugtid baa loo baahan yahay oodan cabaadin